Belarus gobolka Mogilev tuulada Kanichi lama garanayo waxa kaniisadan loogu magac daray. Waxaan tusayaa meesha heerka dabaqa ahaa. Darbiga la malaasay ayaa ka sarreeya saqafka. Darbiga leebka hooseeya heerka dabaqa. Nis la sameeyay inta lagu guda jiro dhismaha alwaaxdii. Alwaaxyo dhumuj weyn leh oo qayb 4 gees ah ayaa halkan la geliyay. Halkaas waxa ku yaal meel bannaan oo lagu talagalay iftiinka xiga. Waa kuwa meelaha darbiga ka soo horjeeda. Way caddahay halka uu ahaa heerka dabaqa ee naqshaduhu qorsheeyay. Hoosta heerka dabaqa qaab dhismeedka daahsoon ayaa laga helay gidaarka. Kuwani waa meelo loo sameeyay kaabka lebenka. Waxay ku dhamaanayaan gidaar leben ah. Darbiga macbadka waxa ku yaal dhowr meel oo kale. Meesha labaariga agteeda ama halkii meesha labaariga hoosteeda. Kuwani maaha albaabada daaqadaha mana aha albaabo. Dhammaan nijesku waxay ku dhamaadaan gidaarada lebenka. Waxaa jira dal gidaarka ka sarreeya mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya. Aad bay ugu yar tahay marinka. Ninna halkan ma iman doono. Wax badan sida haw qaadista. Waxaa jiray alwaaxdii saxadda kore. Furitaanka iyo nicha waxay ku yaalin heerka dabaqa ka hooseeya. Tani waa sida uu u egyahay furitaanka bannaanka. Daloolka hooseeya heerka dhulka. Marka baraf dhalaaliyo oo da'o, biyuhu waxay ku qulquli doonaan halkan. Oo ku qulqul meelahan dhulka hoostiisa ah. Wuxuu dhisma diineed ugu baahan yahay darbiga meesha allabarga hoostiisa. Uma eka meel kaydinta. Waa maxay sababta ay u jiraan iyadoo loo marayo meelo bannaan oo laga sameeyay meelo ka sarreeya niches. Tani maaha oo qaadis baa mise iftiimin. Waxaa laga yaabaa in kaniisadu aan loo dhisin salaada iyo barida akhlaaqda. Ka sii badan sida xalka tiknoolajiyada. Halkan waxa ay ku sameeyeen biyo iyo hawo. In meelahan meesha allabarga hoostooda.